nabadoon mahad gadaamo ku soo dhawow telefishinka S24 waa ku dhawahay aad iyo aad aan u dhawahay S24 TV waa idaacad aad u qiimo badan waa ku dhawahay aad iyo aad aan ugu dhawahay insha Allah taala nabadoon bal ka waran aragtida la xiriirta sidee u aragtaa aqoonsiga Somaliland oo ku saabsanayd Israa'iil iyo arrimaha xasaasiyadda ka dhalata maalmahan la isla dhaxsooday ka waran adeer runta markaan ku sheego waxa la dhageysan kara ma aha yahuud maanta inay Soomaaliya gobol kamid ah ay soo haweysato waxa la dhageysan kara ma aha aad iyo aad aan ugu xunnahay waxaas wax laga yeelay cid ka yeelaysa Somaliland male Somaliland wax badan ay macnaha xadgudub sameysay mar waxay tiri waxaan nahay Ethiopia mar waxay tiri waxaan nahay qoladii Oromo mar walba meel ay aadaa annagu waa la yaabsanahay ka dhaqan ahaan wadan dhan oo Soomaaliya ka mid ah qayb ka degan yihiin markii ugu dambeysay hadda waad arkaysaan foolxumada ay taagan yihiin maanta yahuud oo maanta Ilaahay ba nacladay oo waxa ay tahay loog yahay inay sheegtaan waa nasiib darro aad iyo aad aan ugu xunnahay waxaas ayaga ah waxaan leenahay wali waxaad u sii xumahay boqorin isku sheegayo maaldhaweed hadlay waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu aad u qaldanaa ilmaheena taa waxa u bixinaynaa oo yiri sidii aan maqlaayay Netanyahu iyo kuwaas u bixinay Tel Aviv u baxsanaynaa oo sheegay aad iyo aad wax looga xumaado waaye laakiin waxaan u sheegaynaa wadanka Soomaaliya taa ka mid ah yahuud sheegaysaa wax u dhow loo ogolaama insha Allah taala taasaan ku sheegay macaan waayahay nabadoone adiga waxa kamid tahay dhaqanka Soomaaliyeed bal arintaasi ku saabsan in magacyada hata laga bedelayo caruurta oo Somalilandeeska bal dhinaca ka waran dhaqan ahaan maxay dhaawici kartaa iyo diin ahaanba maxay ka bedelayaan isla gaaray waqtigaas cid isla gaaray Soomaaliya diinteeda waa ku adag tahay aad iyo aad ay u adag tahay cid iska yeelaysa Soomaaliya intaas ka hore ayaa wax isbedeli doona hadii Ilaahay yiraahdo cid ka yeelaysa male nimankaas Tel Aviv iyo qoladan waxaan leeyahay yahuudana dad riyoodayan waa ka riyay ku jiraan waxay aqoonsan karaan malahan niman ayaga aan la aqoonsan meel laga aqoonsay ay jirin dad aan aqoonsanayna inay yiraahdaan waa qalad ah marka kuwa hadda macnaha ayaga ay leeyihiin waana kuwa aqoonsanayna ay leeyihiin iyo kuwa ayaga hadda aqoonsi u sheegayaba inta wax aqoonsanaya ma jiraan yahuudna Ilaahay baa nacladay horaan kugu sheegay marka adeer saas ajirtay insha Allah waayahay ka waran bal sidee u aragtaa wadamo badan iyo ururo badan ka hadlay waxa ugu dambeeyay ururka Xuutiyiinta Yemen ka dagaalama sidee u aragtaa hanjabaadida ay dirayaan dhinaca fakarka Xuutiyiinta ay sameynayaan aad iyo aad u taageersanahay yahuud ka hortag ma ahane wax ka dhigid male insha Allah taala waayahay ka waran marka dawladda Soomaaliya ma ku guuleysan kartaa inay ka hortagto maadaama xiriir badan ay sameysay wadamo badan ay ka hadleen hadii aad fiiriso wallahi dawladda Soomaaliya kaliya ahaan waxa waaye caalamka oo dhan ma ka hortagay caalamka islaamka oo dhan ma ka hortagay waxa cid ka yeelay mar hadii Ilaahay yiraahdo caalamka islaamka oo dhan ma ka hortagayaba waxa waaye yahuud iyo muslim meel ma wada galaan maxaa ku soo beegan isla kara xilligan sideen u saameyn kartaa cirro xafiiska uu joogo xilligan arinta waxa xafiis uu jooga ma jirin marka runta ku sheega sababtoo ah nin hadda qadiintiisa iyo diintiisa iyo islaamnimadiisa maanta yahuud dorbiday wax faa'iido u leeyahay markaas hadda uu dhima waxbu hay ma badhayayo ma badhi marka ugu dambeyntii ka waran horay Muuse Bixi markuu joogay waxa uu sheegay in dadka reer waqooyi ay yihiin Oromo iyo yihiin Ethiopian haddana cirro waxa uu sheegay in Israa'iil la taageero ama aqoonsi ay ka heleen dadkan halkaas markaasi ay ka biicaabi doonaan ma la isdhihi karaa dadkan wax jira siyaasad xumo kala jirta wallahi waxaan leeyahay dadka shacabka qaarkood waxaan arkaynay qaar hadlayaan arkaynay oo aad u cun arrimaha noocaas ay tahay waa ka arkaynay marka siyaasadda xaggeeda ma hana shacabka badankiisa waxaan u maleynaa inuu afkaarta asaas inuu saxsan oo maleynaa shacabka dad fiican ku jirta diintooda ku hadalay marka waxa la isdhihi karaa Soomaaliland madaxdooda ayaa markaas siyaasad xumo dheerkooda ayaa jirta madaxda ictiraaf ku waalatay ictiraaf kale ictiraaf Ilaahay baa bixiyay ictiraaf ma taqaana oo kaal bixinayo Netanyahu loo istagay wiliga ma arag ictiraaf Allah bixinta si inay ogaadaan ka rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo ugu dambeyntii maxaa ugu baaqaysaa shacabka gobolada waqooyi gaar ahaan reer Boorama iyo gobollo kale waxa jira oo diiday arintaasi reer Boorama aad u soo dhaweynayna waa muslimiin waaye saasay dadaalka sii wadaan aad iyo aad macna ma taqaana ay warka ay sameeyeen iyo banaanbaxida ay dhigayaan iyo aad u soo dhaweynayna kuwan kalena waxaan leenahay hadii Ilaahay yiraahdo yahuud waxba idin tarimayse muslimaatiina muslimiina
khilaafina leena insha Allah saasaan ku leeyahay aad baad u mahadsantahay nabadoon mahad gadaamo oo qadka telefoonka inaga warramayay